السلام عليكم. qof kasta wuxuu leeyahay hobby ama waxa uu xiiseeyo jecel yahay waqtiga uu firaaqada yahayna uu ku bixiyo anu markaan firaaqada leeyahay waxaan akhriyaa sanadku si uu cararaya ma garanay meesha ku cararay iyo cid eryanaysa laakiin waxa rabaa inay la wadaago 6 bilood ee la soo dhaafay buugaagta aan akhriyay kaliyaad waxaad la wadaagayaa inta ugu wanaagsan ama aan ku dhihi lahaa waxaad u baahan tahay inaad akhrisatid maskaxdaada aqoontaada noloshaada dhan haddii uu buug bedeli karo this is the book bedeli kara noloshaada waad u baahan tahay haddaad maanta igu timaadada ugu jiraahid adduunka wax akhris baan u necbahay ma akhrin karo laakiin hal buuga waxaa rabaa aan isku dhigo 6 bilood ee sanadka ka harsan this is the only book aan ku dhihi lahaa akhriso buug kale uma baahnid haddii aad buugan akhrisatid buugga mataqaanaa 48 Laws of Power qoraaga qoray baa kan qoray buugga iyo buugani waxay isku yihiin geedka caleentiisa iyo jirridiisa kani waa jirrida geedka kaasina waa caleenta geedka so intuu doono kana ka muhiimsan noloshaada waxaad u baahan tahay inaad buugan akhrisatid sidoo kale buugana muhiim baan u arkaa inuu qofku akhristo the mindset wuxuu kaa dhex saarayaa mataqaanaa mar walba like levelka aad joogtid wuxuu ku geynayaa level ka sareysa mar walba waxaa jira laba mindset fixed mindset iyo growth mindset like maskax taagan meesha asunku taagan oo xadidan aanan horumar iyo wax kale ka fikirayn weligaa ma aragtay qof meel ka shaqaynaya ilaa 5 sano aanti u horeysay mushaarkii loogu bilaabay wuu weli qaadanayaa weli noloshiibu ku nool yahay 5 sano ama 3 sano ka hor aqoontii uu lahaabuu weli hadda leeyahay kuma sameynayo wax horumar ah ma sameynayo wax dadaal ah wax isbedel lama imanayo taas waxa loo yaqaanaa fixed mindset waa maskax go'an maskax xadidan aan dadkaasi waxay ka cabsadaan isbedelka inay isbedel sameeyaan in ay horumar sameeyaan sababtoo ah uma dul qaadan karaan failure-ka inay waxay rabeen ku guuldareysaan uma dul qaadan karaan si fudud bay isku dhiibayaan waxaanad moodaa mar walba dad kale inay tartan kula jiraan waxa kaliya ee wax u qaban karaan waxa weeyaan haddii ay qof tartan kula jiraan that's fixed mindset dhinaca kale marka la fiiriyo waxaa jirta growth mindset waa mindsetka aad u baahan tahay growth mindsetka marka uu qof ku jiro jira isbedel joogto ah mar walba wuxuu raadinayaa xaaladun uu ku jiro mid kale oo bedesha ama kasii sareysa kama cabsanayo failure-iska iyo inuu ku guuldareysto because of guuldarada qofkan wuxuu arkaa inay tahay qayb koriimada ka mid ah so buugan waa u baahan tahay surrounded by idiots wuxuu ku barayaa 4 nooc ee shakhsiyadaha bini'aadanka dadka kugu hareeraysan dadka aad la nooshahay dadka aad la shaqaynaysid dadka aad la tacaamulaysid dadkaasoo dhan inaad baratid adiguna aad naftaada baratid waliyan waxaan u arkaa wax muhiim ah ruuxantii ku anfacayaa noloshaadana oo fududeynaya because of qof walba marka aad baratid waxaad kula dhaqmaysaa sida uu yahay mana jirto wax ka degan ka qurux badan kana fiican dadka marka aad fahantid dabeecadooda sababtoo ah waxaad kula dhaqmaysaa qof walbaba dabeecadiisa okay dabeecadiisa kula dhaqmaysaa intaasoo dhan marka laga imaadana adiga isfahmaya naftaada fahmaysaa bal suurayso adiga ay kugu hareeraysan yihiin dad xaasidiin ah bilaa naxariis ah ku dili kara adiga dhan cadcad ku goyn kara wax kastoo xubaan oo niyadaada ku soo dhici kara kugu sameyn kara been ku sheegi kara laakiin aanan dareemin wax guilty ah like inay ku xumeeyaan ama been ku sheegaan ay ayaga agtooda caadi ka tahay dadkaas adduunka kugu la nool way kugu hareeraysan yihiin waxa laga yaabaa xataa kuwa kula dhashay inay kamid yihiin so psychopathku waa dadka adduunyada ugu halista badan leh sababtoo ah wax naxariis ah ma lahan wayna fiicnaan lahayd inaad iska akhrisatid buugan because of hadda waxaan u galaynaa fictionka waxaa la dhahaa artiga ama farshaxanka macna haddii loo sameeyo waxa ka guura macnihiisii u gaarka ahaba ka guura so fictionkuna wuxuu ka mid yahay artigu ka mid yahay haddii aad tahay qof mar walba raadiya wax kaste macna u sameynaya waxay ka dhigan tahay maybe ma haysiisid ama boos kaagama banaana laakiin aniga fictionku ama artigu qalbigayga iyo maskaxdeydaba iyo noloshayda dhanba wuxuu ku leeyahay qayb weyn boos weyn baa uga bannaan marna baan erayo kusoo koobi karin marka haddii aad tahay qof saas oo kale fictionka jecel kana dhex arka quruxda ku qarsoon waxyaabahaas farshaxanka la abuuray oo laga yaabaa buugaagtan inay ku cajabiyaan haddii la dhihi lahaa waxaan maanta ku siinaynaa hal fursadaasina waxa weeyaan inaan buugaagta aad weligaa noloshaada akhrisatay hal kamid ah inta soo qaadno aan xasuustiisa ka tirtirno si aad mar labaad u experience garaysid this is the only one aan dhihi lahaa iga masaxa xasuustiisa si aan mar kale u soo experience garayo markaan akhrinayo
روحانتي قيب وين بو قلبي كله هاي كنا وحنا لها after the dark مركامي قري شكله مركي لا ألفيه واحد جرتا the first person إنه أسوي يسوي قفك وأسوي شكله كشيء وسيدا ما قرأ مرنا وحويان قفك وحقريا سوورينيا لكن بو جني وحسوورينيا أسي كاميرامان أخرجته أنا كواحد هاي كاميرامان أبى أقول هلاي إنك أو أندريمي إني كلا دينا شكله صوبته ما أيسن لهين لماد جناند ما أيسن لهين haddii aad u baahan tahay maalintaada quruxda badan la inaad iska kharajid oo xoogaa murug dareentid qalbigaaga culays saartid sheekadan akhriye The White Knight uu qoray Dostoevsky waxyaabaha Dostoevsky uu caanka ku yahay ama aan u xiiseeyo dad badanina ay u xiiseeyaan sideedoo kale waxa weeyaan awoodda uu u leeyahay inuu cabiri karo dareen way kala duwan tahay inaan dhaho waa murugsanahay iyo 10 page inaan ku qoro waa murugsanahay anoona isticmaalin kelmadda murug ما فهمت مروجوين كل لبنا أو مروجة أجره أنا بكل جرنا يا مروجة وحوي عم بناك أصوب بحد مركز مروجة ترنتيد قلبي جا وبناك أصوب سعره ومروجة قل المينزيد تحسوا النفسي سامرك المينزيد كتب مروجنا وحوي مروجة قلبي جا والله سعره سكلياته أنا بناك أصوب بحين I think مروجة دمبار كدرن صوبته وحلا جاي بقى إني حوجة كسي سامي سمالمو ساعة تطبعته صوبوك مركز آخر ستيت كتب waxaad dareemi doontaa murugadaas qalbigayga culays ka saaraysa kaliyaata waxaad ka fikiri doontaa mar walba oo sii seexanaysid waxaad ka fikiri doontaa mar walba oo kaliya tahay ilaa iyo inta aad maskaxdaada ka ilaawisid ama buug kale aad akhrisanaysid oo ka sii murug badan murugo kale qalbi jab kale waxa jira dareen aanan cabiri karin ama sheegi karin oo ku duugan waxyaabaha murugada leh ma garanaysaa sababta aan u xiiseeyo waxyaabaha qalbigayga leh أسامو دزاي بوقت مركو قرية depression أيهاي تاكلي ياتاك وقفلن أنا أوقاتي بوقت تاس وحكو جرا يا عيلك وحياة بضم بالو سمي قف أدلي قف با أساق درتي اسكو دلي قف با لوشي سدنكو قاتي إنو هيسو إيا قبيا إيو وحسميو قف با أدنتي قف با مرق درتيد واشي أمينة المفتينة جعل درتيد وحي أخيانتي dadkeeda dalkeeda diinteeda nafteeda jacayl darteed waxa weeyaan basaasadii carbeed ee masud ugu caansaneed ama basaasadii carbeed ee ugu halista badneed ugu dhagarta badneed ugu dhibaatada badneed ee carabiyada ahayd uganish fiction ma aha waa shay karuna oo dhacday waad u baahan tahay in akhrisid kuwan waxa weeyaan taxanaha artisiikool Khalid marka laga reebo qof kasta wuxuu istaahilaa inuu jacaylkiisa helo Khalid waa karakterka matalaya artisiikool buuga waan ka helay sheekada inta kale marka laga reebo Khalid jacaylkiisa foosha xun leh afartan dumara waxa ay ku xaniban yihiin ama ku xiran yihiin dhulka hoostiisa meeshaas ay ku maxbuusan yihiin ma garanayaan sababta ay meesha u yimaadeen mana lahan xasuus noloshoodii hore it is literally so interesting waa sheeko normalka ka bixinaysa berigan yaraa waxaan lahaa fantasy aniga oo duni kale kaliya jooga ama jooga magaalo kaliya ku nool waxaan xasuustaa maalintan akhriyay mar walba oo meel u socdo ama habeenkii sii jiifsanayo maskaxdayda qaybta dambe maaragtay mar walba waan ka dhex arkayay sheekadaas iyo noloshaas oo socota buugii u dambeeyeen akhriyay maanta bisha 27 shalay toole oo 26 ahayd baan dhameeyay waa iska philosophical and haddii aanad ahayn qof philosophiga familiar la ama xoogaa ka akhrini waxa laga yaabaa inuu kugu adkaado ama aad istiraahid xooga sheekeynaya waxaa idin rajaynayaa waqtiga idin tahayba wacan wanaagsan adiguna waxaad nala wadaagtaa buugaagtii aad akhrisay 6 bilood la soo dhaafay ama waxaad qabatay waxaad waqtigaaga ku lumisay wax u noo sheeg